الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، إلهي سبحانه وتعالى قرآنك وحكولي وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. في سورة البقرة. في سورة النساء إلهي وحلي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أيها الأحبة، xidhiidhka aadanaha ka dhaxeeya في الشريعة العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان wuxuu ku salaysan yahay asliyan العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. xidhiidhkaasi oo dawaa'ir ama xayndaabyo kala dambeeya ah oo ugu horeeyo qofku inuu naftiisa u ixsaan falo, kadibna usrada iyo aqaaribta, kadibna mujtamaca uu ku nooliyey, kadibna insaaniyada dhammaanteed aynu odhan karno. daa'irada koowaad ee nafta iyo ixsaanfalkeeda ilaahay wuxuu leeyay in axsantum lianfusikum wain asa'tum falaha. daa'irada labaad oo waalidka ilaahay wuxuu leeyay waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ilaa iyaah wabilwaalidayni ixsaana. xayndaabka ama daa'irada saddexaad oo ah qaraabada in loo samafalo ama se la xidhiidhiyo waa ka mowduuceennu ku saabsiisan yahay. ilaahay markuu tilmaamay anlaa tacbuduu ila allah laa tacbuduuna ila allaha wabilwaalidayni ixsaana wadi lqurba walyataama walmasaakiin baa ilaahay ku xigsiiyey. daa'irada afraad waa bulsho weynta ama oo qur-aanku uu siiba ka sii tilmaamayo qaybteeda ducafada ah alyataama walmasaakiina waljaari di lqurba waljaari اljunub والصاحب بالجنب وابن السبيل. daa'irada ugu awsacsan ee xidhiidhka ee bini aadamnimo la sameeyaa waa daa'ira alkhaamisa oo ah alcilaaqaat alinsaaniya dhammaanteed oo ilaahay subxaanaه wa tacaala ku tilmaamayo walaa tazaalu taطalicu calىa khaa'inatin minhum ilaa qaliila minhum faacfu canhum wasfax in allaha yuxibu اlmuxsiniin. haddaba aadanaha xidhiidhka ka dhaxeeya asal waxa uu alcadl walixsaan dhammaantii maca almukhaalif. asalku waa alcadl walixsaan. waxaynu markaa innaga darsigan loo qoondeeyey inuu noqdo ka ku saabsiisan silati rixm ama qaraabada iyo dadka tolka layay xidhiidhkiisa. alixsaan ila alaqaarib ama samafalka loo samafalo dadka kuu dhow waxay ku salaysan tahay hadba awoodda qofku uu leeyahay iyo ka la xidhiidhinaya awooddiisa buu imaamu nawowi leeyahy raxmat ullaahi calayh. markaasu wuxuu leeyahay mar waxaa dhici karta inay adduun noqoto oo xoolo laysku caawiyo laysku xidhiidhiyo. mar waxaa dhici karta buu leeyahy inay khidma iyo shaqaalanimo noqoto oo laysu shaqeeyo oo lays caawiyo. mar waxaa dhici karta buu leeyahy inuu xidhiidhku ahaado ziyaara iyo salaam, isbooqasho iyo isasoo salaan. marka aynu joogno waddannadan galbeedka waxaad mooddaa inay iyaga caan agtooda ka tahay wax privacy la yidhaahdo. qofka iyo dowladdaa xidhiidh leh laakiin bulshadan ka sokaysa in badan inaanu xidhiidhkiisu badnayn. walidaalika inaanad arag ilmo iyo aabbihii ama waalidkii oo isxidhiidhinaya iyada qaraabo kale ka kaalaya. la dhaqanka lala dhaqmo bulshooyinka noocaasiina wuxuu dhaxal siinayaa dadka in dhaqamadooda wax badan oo ka mida ay bulshada ku dhex faafaan oo la qaato. walidaalika baad mooddaa in loogu talagalay muslimka muqtaribka ah ama muslimka
carrigii muslimiinta ka soo durkay ee dhul shisheeye degay ee dhaqan iyo hidde kale la noolaaday looga cabsi qabo inuu ku milmo ama la wadaago dhaqamadooda in badan la xasuusiyo dhaqanku islaamku lahaa iyo diintu wixii ayna faraysay waxaa ka mid a baynu markaa leenahay diintu waxyaabaha ugu waaweyn ayna farayso waxaa ka mid ah silatu rixm qaraabada iyo rixmka ama xagga hooyaha ka soo jeedaan ama xagga aabbaha ka soo jeedaane in la xidhiidhiyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriq waalmaghrib walakina albira man aamana biاllahi واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إلهي سبحانه وتعالى وحينات الماما يا السموه إنان وهينون عباداتك بدني قال السمايو كلية ومشرق يا مغرب سلاد اللولة يستقر إنان يهين وحا الصحة هينو يهي رمين الرب للرمية يا مالنت القيامة يا ملائكة يا كتبت يا النبي يده وحا إلهي سبحانه وتعالى أركان الإيمان كي كحريري وآتى المال على حبه ذوي القربى يا هانتي xoolo in la siiyo iyadoo la jecel yahay waliba xoolo saacado badan aad ku soo dhididay oo waqti badan ka galay inaad haddana bixiso oo aad siisaba ilaahay leeyay dawi alqurba wal yatama wal masakin wa ibn as-sabil kuwa qaraabada oo saaxiibka ah agoonta iyo masaakiinta iyo kuwa jidku ku go'ay waayay safarku ku dhex go'ay iyo saa'iliin iyo wixii la mid ah waxaan u tilmaamaynaa aayaadkan qur'aan badan baa ku soo arooray iitaa'u dil qurba yasaluunaka maada yunfiquun waxay ku weydiinayaan maxaanu bixinaa qul maa anfaqtum min khayrin falilwaalidayni walaqrabiina walyataama walmasaakiina wabni الsabiil wixii aad bixisaane khayra baa ilaahay yidhi waalidka ay ku xigto qaraabadu ay ku xigto bulshada weyne kale inteeda baahane وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلهي سبحانه وتعالى آيات بدن قرآنه أيوح كت المامية دتك كو حق لإن وحلسية إن يهين كو والد كدبنا قرابضة كدبنا ضعفضة مسلمين تا بل قرابضة إلهي وحت المامية هدي والد كردنتو الله دحل أيوه dadka dhaxalka leh siiba hadday qaangaadh yihiin goobta dhaxalka marka la joogo qaraabada kale soo xaadirtee timaada ee aan dhaxalka iyagu wax ku lahayn in wax la siiyo waidaa xadara alqisma ulu lqurba walyataama walmasaakiin farzuquuhum minhu baa ilahay yidhi wax ka siiyo ka arsaaqa waquluu lahum qowla macruufa aayaadka qur'aanka ah iyo aayaad badan oo kaleo qur'aani waxay tilmaamayaan qaraabada xidhiidhkay u baahan yihiin in la xidhiidhiyo xidhiidhkaasi ha noqdo mid hantiyeed mid caawimo kale ah mid booqasho ah mid salaana intaba inay xidhiidhkaasi xaq u leeyihiin dadka qaraabada iyo sokoayaha iyo dadka ku dhow inta aanan tafaasiil badan gelin nusuus badan oo qur'aanan akhrinin waxaan tilmaamayaa waa waxyaabihii ugu horreeyey ee shareecada islaamiga ay la soo degto qaraabada xidhiidhinteedu waxay soo degtay tawxiidkay la socotay qaraabada xidhiidhinteedu waxay la socotay tawxiidka walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka maalan uu warinayo camar ibnu cabasa assulami saxaabigii la odhan jiray ayaa wuxuu leeyahay kuntu wa ana fi ljaahiliya adunnu ana annaasa calaa dalaala wakhtigii jaahiliyada ee aan joogay buu yidhi haddana waxaan arkayuun dadku waxaanay samaynayaan inay baadi tahay diintanay dadku haysteen wakhti ljaahiliya inaanay sax ahayn baa ii muuqatay buu yidhi oo waxay dadkani caabudayeen sanam iyo wax la mida waxaas inaanu sax ahayn
waxaan markaa maqlay buu yidhi in makanin ka soo baxay oo akhbaar cusub wada markaasaan soo fuulay buu yidhi neefkaygii daabaddaydii anigoo raba dadkani waxaanay ku sugan yihiin waa dalaale bal ninkan cusubi wuxuu sheegayo inaan soo maqlo makaan imi buu yidhi waxaan u imi buu yidhi iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam mustakfiyan juraa'aa'un calayhi qawmu isagoo ah buu leeyahy faidaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama mustakfiyan juraa'aa'u calayhi qawmu iyadoo nebigu uu dhuudhuumanayo oo tolkiina ay ku dhiiran yihiin oo la dhibayo yacni waa dacwadu markay bilaabantayba oo nebigu calayhi salaatu wasalaam la dhibay oo uu dhuudhuumanaya buu leeyahy isla markaana lagu dhiiranyo la dhibayo dabeetana waan u soo dhuundhuuntay buu leeyay ilaa aan u imi nebiga calayhi salaatu wasalaam camar ibnu cabas assulami oo nin reer miyiya abaa u yimi su-aaluu nebiga weydiinaya su-aalaha wuxuu kaga bilaabay maa anta man anta ma laha kumaatay ma leh ee wuxuu leeyahy maa anta maxaa tay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ana nebiyun anigu nebi baan ahay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam ninkan muslimka noqday ee reer baadiyii wuxuu ku yidhi markaa wamaa nebiyun oo nebigu waa maxay nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu nebi baan ahay isna wuxuu yidhi haddaba nebigu waa maxay buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu jawaabay arsalanii allah ilaahay baa isoo diray buu yidhi ilaahay baa isoo diray wuxuu yidhi markaa wa biayi shayin arsalak oo muxuu kugu soo diray ilaahay haba kuba soo diree waxaad wadeen risaaladaadu waa maxay wuxuu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam arsalanii bisilati الraxim bisilati اlarxaami wa kasri اlawhaani waan yuwaxad allahu laa yushraku bihi shay-un saddex shay baa laygu soo diray buu nebigu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam wa fii awali الrisaala nebigu wuxuu leey waxaa laygu soo diray qaraabada xidhiidhintii iyo asnaamta burburinteed iyo in ilaahay keligii la caabudo aan loo shariig yeelin saddexdaa qodob baa laygu soo diray buu nebigu yidhi idan culammadu waxay yidhaahdaan waxyiyadii u horreeye nebiga la soo faray waxaa ka mid ah tawxiidka in dadka loogu yeedho asnaamta in la burburiyo iyo in qaraabada la xidhiidhiyo ma awoodeen wakhtigan inuu nebigu asnaamta burburiyo laakiin inay mabda' tahay buu tilmaamayay asnaam burburiskii nebigu wuxuu bilaabmay wakhti dambe laakiin warka kan waxaa loo sheegayaa mabaadi'da islaamku uu la yimi waxa uu yahay waxaan weydiiyey buu yidhi faman macaka calaa haada warka ayaa kugu raacsan nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi xurun wa cabdun dad xor iyo addoommaba way la socdaan buu nebigu ku yidhi markaasuu saxaabigani wuxuu leeyahy markaa waxaa la socday abubakar iyo bilaal baa ka mid ahaa buu leeyahy markaa kuwii rumeeyey waxaan ku yidhi buu yidhi aan ku raaca haddaba aniguna waa ku rumaynayaaye waa ku rumeeye aan ku raaco nebigu wuxuu igu jawaabay buu yidhi hadda ma awoodid innaka laa tastatiicu daalika yowmaka haada maanta ma awoodid inaad raacdid buu yidhi alaa taraa xaalii wa xaala annaas miyaad arkayn buu yidhi aniga iyo dad waxna kala haysta anigii baa dhuumasho ku jiree adigoo baadiye ka yimi xaggaad ii raaci buu ku leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam iska noqo buu nebigu ku yidhi reerahaagii ku noqo beriga aad maqasho inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi iminka intaad iska noqoto ilaahay rumee dabeetana iska tag reerihiinni ku noqo marka aad maqasho inaan guulaystay markaa ii kaalay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabigani wuxuu leeyay dabeetana waan iska noqday reerkayagii baan dib ugu noqday muddaan akhbaarta dhegaysanayay bal waxa maka ka soo kordhay iyo waxa isbeddelay markii dambaa waxay soo gaadhay war ah inuu nebigu uu hijrooday oo madiino tegay baa soo gaadhay buu yidhi markaasaan soo baxay buu yidhi dad reer yasriba waxaan warwaraystaba dad reer madiina baan helay buu yidhi waan weydiiyey waxay idhahdeen ninkaasi waa yimi siduu xaalkiisu yahay baan ku idhi buu yidhi waxay idhahdeen dadkii way raaceen markaasaan madiino soo galay buu yidhi nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi atacrifunii waa nin reer miya
may garanaysaa buu ku yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam intuu yimi nebiguna wuxuu ku yidhi qaala nacam waan ku garanayaa anta aladii laqiitanii bimaka ninkaanu beriga hore maka isku aragnay baa tahay buu nebigu ku yidhi markaasaan idhi buu yidhi haa ee ilaahay rasuulkiisiiyo wixii alla ku baray wax iga bar oo bal salaadda iga warran horta waxa la yidhi waa la tukanayaaye markaasuu nebigu u sharxay calayhi salaatu wasalaam salaad iyo tahaaro iyo islaam xadiidka waxaan u soo qaadanayaayoo keliya mas'ale ah waxyaabihii ugu horreeyey diinta ka soo dega waxaa ka mid a xidhiidhkaasi bulshadu inay isku xidhnaato sida daraaddeed ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu u tilmaamayaa ninkaa reer miyiga ee ugu yimi isagoo dhuumasho uu ku jiro xilligii hore islaamka ay tahay in waxyaabihii nebiga loo soo waxyooday ilaahay soo faray ay ka mid tahay qaraabadoo la xidhiidhiyo iyo sanamadoo la burburiyo iyo ilaahayoo keligii la caabudaan cidna loogu shariik yeelin waxaad ka garan kartaa waa acmaashii ka soo hadhay diintii nebi ibraahim bay ka mid tahay silatul arxaam waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigu ku soo degayba ee uu baqayey khadiijo waatii ku tidhi innaka latasilu larxaam waxay lahayd adigu nin fiican baa tahay oo dadka caawiya qaraabada waad xidhiidhisaabay ku tidhi oo qofka dhibban waad u gargaartaa oo yacni wuxuu nebigu samayn jiray bay tilmaamtee wanaagga ahaa marka waxyaabihii koowaad ee ay ku leedahay ilaahay ku dhibi maayo khadiiji waxay lahayd innaka la tasilu raxim raximkaad xadhiidhisaa waxaa kuugu filan wakhtigii la farad yeelay ama la waajib yeelay ama laysfaray in la xidhiidhiyo qaraabada waa wakhtiyadaa hore xataa muslimiintu wakhtiyada ay u hijroonayeen ardi alxabasha waxaa dhacday caaisha waxay leedahay anugu waxaan garaadsaday labadayda aabbo oo muslimiinuun baan garaadsaday yacni aabbiyo hooyo oo nebiguna calayhi salaatu wasalaam maalin walba na soo booqdo gelinka hore iyo gelinka dambaba markii muslimiinta la dhibay ee badh ay dhulkay xabashida u hijroodeen ayuu abiibakarna magaalada iskaga baxay abibakar meel la yidhaahdo barka alkhimaad isagoo maraya ayuu wuxuu la kulmay qabiilka alqaara la yidhaahdo suldaankoodii ama odaygoodii buu la kulmay ibnu dakhina nin la yidhaahdo ibnu dakhina wuxuu ku yidhi ayna turiidu ya abi bakar odaygaa waa yeelkaaba wuxuu yidhi war abibakarow xaggaad ku socotaa xaggeed u socotaa abibakar wuxuu yidhi tolkaybaa i soo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard wa acbuda rabbi waxaa jiri jirtay qabla alislaam cibaada siyaaxa la yidhaahdo oo ah qofku intuu iska dhaqaaqo isagoo aan meel gaara u soconin dhulkiisa unun iska maro si uu ilaahay u caabudo abibakar markaa wuxuu leeyahay anigu meel gaaraba kuma socdee asiixu fi lard dhulkaan iska maraya waan socdaa waxaanan rabaa inaan ilaahay caabudo saa'ix inaan noqdo saa'ixu tuuriiskan aynu imika sheegna maaha waa saa'ixiinta qur-aanku uu ka warramayo iyo wixii la mida dabeetana ibnu dakhina ninkaa la yidhaahdaa wuxuu yidhi abibakarow adigoo kale dhulkiisana kama baxo lamana saaro nin wanaag sameeyo oo waayeela oo odayo oo dadku ka dambeeyaad ahayd markaa adigoo kale nin iska tagana ma tihid nin la saarana ma tihid abibakar markaa muxuu ku ammaanayaa ibnu dakhina wuxuu yidhi innaka taksibu almacduum wa tasilu alraxim wa taxmilu alkal wa taqri dayf wa tuciinu calaa nawaa'ib alxaq fa ana laka jaarun intii ay khadiiji nebiga ku lahayd oo kale buu ku yidhi wuxuu yidhi kaan waxaysan nin wax siiya baad ahay oo qaraabo nin xidhiidhiyaad tahy oo kii culus nin culayska ka fudaydiyaad tahy oo martida nin sooraad tahay oo dhib qofka ay haysato ku kafayda baad tahy yacni waxa laaliya waxa wanaag dad loo qabto nin qabtaad tahay suurtagal maaha ninkaaga caynkaasi in maanta la saaro la yidhahdo iska tag ee waxaad yeeshaa anigaa magangelye ku siiyey carabtu dhaqan bay lahayd qabaa'ilka ama ragga waaweyni cidday doonaan bay magangelye siin karayeen marka intuu qabaa'ilka iyo dadka isugu yeedhaaba waxay odhan jireen dhegaysta hebel anuu maganteeye ninkii taabta dee waa noo tahay reer hebel bay isku madhanayaan markaa weeyaan markaa ciddu magangelyo siiyaan sidaa dowladuhu hadda magangelyada dadka u siiyaan bay u siin jireen
wuxuu ku yidhi ibnu daqina abibakar wanaa magangeliye ku siiyey nin baxa ma tihid ina celi quraysh buu u keenay dabeetana wuxuu yidhi qurayshay abibakar nin la saara maaha waa nin keenna wax siiya qaraabada xidhiidhiya intii buu sheegay qurayshi may beeninin abibakar inuu sidaa yahay may beeninin waxay yidhahdeen ibnu daqinow waanu aqbalay magangelyadaadaad siisay ninkan laakiin bishart baanu ku aqbalaynaa waa maxay shardigu gurigiisa ha joogo ilaahay ku caabudo bay yidhaahdeen waxa uu rumaysay gurigiisa ha ku caabudo salaadiisa gurigiisa ha ku tukado qur-aankiisa gurigiisa ha ku akhristo yaanu meelaha noogu imanin oo nagu dhibin ama carruurta iyo dumarka iyuu naga waalin bay yidhaahdeen ninkani gurigiisa wuxuu doonaya ha ku qabto laakiin dabadaha iyuu ula soo bixin ibnu daqina abibakar buu sidii ku yidhi abibakarow waana iyana cabashay sheeganayaan magangelye anaa ku siiyo cidi ku taaban mayso laakiin waxa aad caabudaysa iyo waxaad samaysanaysa gurigaaga ku samayso sidii buu abibakar muddo ku joogay dabeetana abibakar waa la noqon weyday guri iska fadhiyo ilaahay caabud masaajid yar buu guriga hortiisa ka samaystay meel yar uu ku tukado meeshii uu ku tukanayay buu salaadu galaa qur-aan buu kor u akhriyaa qur-aanka markuu akhrinaya abibakar waa nin bakaa buu ahaa baa la yidhaha waa nin oohin badan buu ahaan jiray ilaahay markuu is hortaagu ilmeeyaa qur-aanka akhriya dumarka iyo carruuraha iyo dadka meesha maraya ku soo urura waa la dhegaystaa way la tacajabaan nin keligii meel taagan oo ooyaya oo tukanaya bay la yaaban yihin waa adigoo un dee kuwanaa la nooshiin intaad bannaankaas shaahidda dhigato innaga malaa dee isheenna ilmi kama soo dhacdee qur-aan akhrinayo ilmaynayo ay kugu soo ururaanu way garan la'yiin ninkan keligii meesha taaganee ooyayiyo waxuu hayo ibnu daqina baa lagu noqdo waxaa la yidhi ninkii wuu ka baxay ballankii inoo dhexeeyey haddii aad rabto inaad jaarnimadaada uu ku jiro meeshii ha ku noqdo abibakar buu ibnu daqina u yimi dabeetana wuxuu ku yidhi abibakarow arrinkan waxaan rabaa dee ballankii waad burisay ballankeennu saaya saasuu ahaa nimankanina dumarkooda iyo carruurtooda ay kaaga cabsi qabaan dee gurigaaga ilaahay ku caabud abibakar wuxuu yidhi dimadaadii baan kuu celiyey niyow anuu meeshan ku noqon maayee magangelyadii aad siisay baan kuu celiyey maanta laga bilaabo mas-uuligama tihid waxbaa cidna carabiyay kuu eed sheeganin xadiidku waa xadiid dheer laakiin anigu ilaahay jaarnimadiisaan raalli ka ahay buu yidhi sidaa inugu kala kaxeen xadiidka kan innagu maxallu shaahidka aynuga dan leennay waxa weeyaan abibakar waxaa la yidhi ma tihid nin la saaray iyo nin baxatoona waayo qarabadaad xidhiidhisaa yacnii inay ahayd wakhtigii muslimku uu cidhiidhigaba ku jiray waa wakhti aan salaadiba waajibin ama aan arkaan badan oo islaamigii soo degin ama sharaa'ic badan oo islaamiga aanay soo degin laakiin islaamnimada ay ka mid ahayd in la xidhiidhiyo qaraabada in la xidhiidhiyo walidaalik ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam axaadiistiisa markaynu eegno in badanoo ka midi maalan markuu abu sufyaan oo gaal ahaa boqortooyadii romaniska ay kulmeen heraklis ninkii la odhan jiray marka uu shaam ku kulmeen ee uu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam waraaqda u diray heraklis uu leeyahay islaam ayuu heraklis wuxuu weydiistay madaxdiisii meesha joogtay war ninkaa waraaqda ii soo diray wax tolkiyo magaalada waddankeenna joogaa ma jiraan waa la raadiyey safar qurayshoo ka yimi maka oo meesha jooga abu sufyaan hoggaaminayo ayaa la helay abu sufyaanna markaa waa gaal waa dagaaladuu nebiga kula jiraa wuxuu yidhi igu yeedha meeshaa la fadhiisiyey qiso dheer abu sufyaan 14 su'aalood ama 13 su'aalood buu weydiiyey oo ku itixaamayo uu rabo ninkan iyo taariikhdiisa dhabtaa inuu helo waa markuu odhan doono hiraqal wallaahi baan ku dhaartee halkan fadhiyuu qabsan doona kaasi yacni inuu nebi xaqayay laakiin markii lagu kacay ayuu madaxnimadiisii iska xejisto gaalnimadiisii iska haystay herakal waxyaabihii uu weydiiyey marka abu sufyaan waxaa ka mid ah muxuu idin faraa buu yidhi ninkani waxa cusube uu la yimi waa maxay ya'murunaa biالsalaati waالsadaqati waalcifaafi waالsila buu yidhi wuxuuna farayaa salaad ilaahay loo tukado
wax bixin wax la baxsado dhowrsanin la dhowrsanoodo iyo wasila xidhiidhin tolka iyo qaraabada la xidhiidhiyo in qaraabada la xidhiidhiyo ayuuna faraya idan maka markii la joogay nabigu calayhi salaatu wasalaam caynkaas u ahaa maalintuu madiine galay ee dadku ka hor yimaadeen ee ansaartu ay soo dhowaynaysay niman yuhuudda ka mida ayana soo raacayay oo eegayay bal nebi maxamed sifooyinkii kitaabkoodu ku qoraa inuu leeyahay oo rasuul yahay iyo in kale si ay u hubiyaan dadkaas soo raacay waxaa ka mid ahaa markaa cabdillaahi ibnu salaam saxaabigii la odhan jiray oo markaa nin yahuudi oo caalim ah waa culammadii ugu waaweynayd yahuudda xadiidkiisu ninkana wuu dheer yahay laakiin maxalu shaahidku maan soo qaadanaya ninkani aakhirkii wuu islaamay laakiin wuxuu yidhi markii aan u imi aan eegay buu yidhi waxaan arkay buu yidhi wejigani weji beenaalaa inaanu ahayn qof kadaaba inaanu u weji eekayn nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wixii koowaad ee markuu afka kala qaaday aan ka maqallayna buu yidhi waa markuu nebigu madiine yimi wixii koowaad ee aan ka maqlay waxay ahayd buu yidhi isagoo leh ayaan u imi buu yidhi ayuha annaas afshu salaama wa atcimu aطacaama wasalluu wannaasu niyaamun tadkhulu ljanna riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayeen in xidhiidhintuna ay ku jirto calaa kulli xaal axaadiistaa markaynu eegno ama nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka uu tilmaamayo in allaha khalaqa alkhalq xataa idaa faraga minhum qaamat alraximu faqaalat hada maqaamu alcaa'idi min alqatiica nebigaa wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam markii ilaahay khalqiga abuuray ayaa qaraabadu ay ka cabatay in la goynayo dabeetana ilaahay baa wuxuu ku yidhi miyaad raalli ka ahayn inaan xidhiidhiyo wixii ku xidhiidhiya inaan gooyo wixii ku gooya dabeetana saasay raalli ku noqotay buu nebigu tilmaamaya iqra'uu in shi'tum buu nebigu yidhi aayaadkan qur-aan u akhriyay fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqaطicuu arxaamakum fahal casaytum ay hal tawaqactum ma filaysaan ma haddii aad jeesataan oo diinta qaadan weydaan inay dhulka fasahaadisaan oo riximka goysaan baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala arxaamtiina aa goysaan nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiista ka asaxday waxaa ka mid ah wuxuu nebigu leeyahay halaaثun uqsimu calayhin saddex waan ku dhaaranaya xadiidna waan idiin sheegaya ee xifdiya saddexdu ku dhaaranaya nebigu waa maxay xoolo sadaqa ma yaraysa buu nebigu leeyahy xoolo kuma yaraadaan ilaahay xaggiisa oo la dhigto walaa dalama cabdun madlama walaa dulima cabdun madlamatan sabra calayha lama dulmiyo addoonna oo dulmigaa kuma sabro oo ma cafiyo iskama dulqaato ilaa zaadahu allahu ciza ilaa iyo cafigaa ilaahay wuxuu ugu kordhiyaa sharaf qofna albaabka mas'alada ma fura buu nebigu leeyahy ilaa iyo baab faqri baa loo furaa waxisiidu hadday kugu badato gaal iyo muslim ciddaa doontaba bariya baryadu ma fiicna saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahy walaa fataxa cabdun baaba mas'ala qof ma furo albaabka baryada ilaa iyo ilaahayna albaabka faqrigu uu furaa hal shayna waan idiin sheegayaa qayba buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa maxay adduunku waa afar unbuu nebigu leeyahy afar qof unbaa adduunku u sugnaaday afarta qof laba waa ammaanantay labana waa ceebaysantay labada ammaanan waxaa ka mid ah addoon ilaahay maal iyo cilmi isugu daray buu nebigu yidhi addoon ilaahay uu siiyey xoolo iyo cilmi fa huwa yataqii rabbahu fiih xoolaha iyo cilmiga ilaahay siiyey rabbigiibuu kaga cabsanayaa wayasilu bihi raximah nebigu wuxuu leeyahay raximkiisana qaraabadiisana wuu ka xidhiidhinayaa ilaahay xaqa uu ku leeyahay ee zake iyo wixii la midana waa gudanayaa kaasi aakhiro afdalu lmanaasil buu degayaa buu nebigu leeyahy meelaha ugu sarreeya idan jannada dhulka ugu sarreeya waxa lagu dego waxaa ka mid ah sida xadiidkani tilmaamaya rabbiga cabsidii iyo haddii ilaahay wax ku siiyo inaad xidhiidhiso dadka qaraabada ku ah xadiidka maxalu shaahidkun baynu ka soo qaadannay waxaynu u dhaafaynaa oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay acmaashii jaahiliyada la samaynayey wakhtigii islaamka ka horreeyey la samaynayey
oo ay ka mid tahay qaraabo xidhiidhintaa qofku hadduu islaamo inuu camalkaana xataa ajarkiisii weli uu helayo walow markuu samaynayo uu gaal ahaa laakiin markuu islaamay in laga aqbalayo walidalik baa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u yimi xakiim ibnu xasaam saxaabi la odhan jiray oo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo bal ka warran arrimo aan samayn jiray berigii jaahiliyada waxba ma helaya waxyaabuhu sheeganaya markaa waxaa ka mid ah silatu raximkaas aslamta calaa maa aslafta min khayr baa la yidhi aslamta calaa maa aslafta min khayr wixii aad samaysay khayr aad horu marsatay waad la islaamtay buu nebigu u tilmaamay qaraabada xidhiidhinteedu waxaan leenahay markaa waa min addiin haddaba waa goorma dadka badh baa waxay u haystaan xidhiidhintu inay tahay markay ku xidhiidhiyaan inaadna xidhiidhiso nacam taasi waa sax waa abaalgud laakiin waxa weeyaan xataa hadday ku dhibaan oo ku gooyaan adiga way kugu leeyihiin xidhiidhintii isagaa dembaabay laakiin adiga way kugu leeyihiin maxay xidhiidhintii walidaalik ayaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahay laysa alwaasilu bilmukaafi waasilka ninkan silatu raximka samaynaya ninkan wax xidhiidhinaya ninka abaalguday maaha buu nebigu yidhi ninka abaalguday dee tolka markaa isku fiicantihiin iyanay wax ku taraan adna aad wax tartee ilmaadeer iyo ilmaabtiyo habarwadaag iyo dad qaraabo isku dhowaatiin oo wax istartaan dee waad abaalgudday markaa wixii lagu tarunbaad adna wax ka celisay kaa maaha buu yidhi nebigu kaynu ka hadlaynaa kaasi waa mukaafi baa la yidhi waa nin abaal lagu lahaayo abaalkii guday laakiin kaan sheegaya walaakina alwaasilu alladii idaa quطicat raximuhu wasalaha buu nebigu yidhi waasilku waa ka marka ay gooyaan qaraabadiisu isagu xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee qur-aankana waxaa ku taalla xaadiثatu lifki markay dhacday dhacdadii been abuurkii ee laga faafiyey caaisha ridwaan ullaahi calayha ee abibakar ayaa wuu dhaartay wuxuu ka dhaaranaya nimankan warkan rumaystay munaafiqiin baa warta sameeyey laakiin dadka badh baa jira warka aan hubina iska rumaystay niman muslimiin oo waaweyn oo muhaajiriin iyo ansaarba leh ayaa run mooday warkiioo faafiyey iyana waxaa ka mid ah xasan ibnu haabit shaacirkii nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ansaariga ahaa waxaa kaloo ka mid ah muhaajiriinta mistax ibnu athaath waxaa ka mid ah xamna waxaa la yidhahdaa dadkii faafiye ka qayb qaatay bay noqdeen dabeeta abibakar wuxuu ka xanaaqay mistax ibnu athaath ninkan la yidhaahdo hooyadii iyo abibakar baa habro wadaaga markaa abibakar qaraabanimo iyo tolliimo daraaddeed isaga iyo hooyadiiba isagaa biila abibakar baa wuxuu biilaa mistaxan iyo hooyadiiba abibakar baa biila isagoo abibakar labadaba wax siinaya ayuu haddana inankii wuxuu wax ka sheegay maxay caaisho ay qaraabo yihiin abibakar arrintii buu qaadan kari waayey markaa wuxuu ka dhaartay inaanu wax damba siinin waan ku dilayaa iyo waxbaan samaynaya kale abibakar ma leh bes wax siintaydaan kaa haysanayaa buu leeyahy wax damba ku siin maayo ilaahay baa qur-aan soo dejiyey leh walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu ulilqurba yay ka dhaaranin ilaahay baa leh kuwa dheeraadka la siiyey iyo nolosha loo ballaadhiyey yay ka dhaaranin dadka foqorada iyo muhaajiriinta ilaahay dartii u soo hijrooday inay wax siiyaan yay ka dhaaranin baa ilahay yidhi alaa tuxibuuna an yakfir allahu lakum waliyacfuu waliyasfaxuu ilahay wuxuu dhahay ha dhaafaan oo ha ka jeestaan miyaydan jeclayn idinba baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala in ilaahay dembigiinna dhaafo idan abibakar waxaa la farayaa iyadoo mistax uu dhibta tan geystay haddana inuu weli xidhiidhiyo oo wax siiyo ayuha alaxiba waxa uu nebigu tilmaamaya calayhi الsalaatu wasalaam man sarahu an yubsita calayhi risquhu aw yunsa'a fii aharihi falyasil raximah ama man axaba an yubsata lahu fii risqihi wayunsa'a lahu fii aharihi falyasil raximah nebigu calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan wuxuu leeyahy ninkii jecel in arsaaqda loo waasiciyo cimrigana loo dheereeya tolkii ha xidhiidhiya buu nebigu yidhi calayhi الsalaatu wasalaam
يعني من أسباب لغو بلادية قفك أرزاق دا إلهي وغو بلادية وحكم دا إناد قرابة دا حديدسو إناد كهانين مركا وحلوغو ويديو وحكم دا وحيابا إلهي عمرك كديريا أما سكو بركيو حديد انت قرابة دا بنبي قولي عليه الصلاة والسلام وقيد بنبي قول حلي إنكي جعل إن إلهي أرزاق دا نو بلاديو عمرك نو ديريو قرابة حديد بنبي قولي عليه الصلاة والسلام هذا أيها الأحبة أحاديث النبي كان صحيح وحكم ده من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه فلا يؤذي جاره لبدا الروايات بس صحيح كصارورين نبي وحولي عليه الصلاة والسلام ننكي إلهي إيا مالنتا قيام الرميسانو مرتدى صار ننكي إلهي إيا مالنتا قيام الرميسانو شاركة حدمين ولو قال لها هذا ننكي إلهي إيا مالنتا قيام الرميسانو أما خيركو هذا لما إسكا آمو وحكال النبي يقول ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ننكي إلهي يا رسول بالرميسانو والقرابة هذا حديدي بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام إلهي يا رسول هدات رميسان تهي قرابة حديدي بالنبي يقول عليه الصلاة والسلام وحكم إذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحو إنه قلت المام أيوه إن يندتك أمضا صدق الله سيو مركاد وحبحين يسو دتك أمضا وحلصية إن يجيين وحد عدي ميمونة بنت الحارث هوين دي اللي ورنشر وكم ده هوين كي النبي قبي عليه الصلاة والسلام أحاديث أنت بدن صحيحين كصار يعني آخرنا إياه أيا قبل يرو وليدة قبل يرو هي ستة يوضون يرو هيد أي حريصة دبتنا وأيدا النبي يقول لك شوقين عليه الصلاة والسلام توقد يدي مركو النبي يقول وقت يدي ويمي أي أشكت أو واحد تري واسيداي دبتنا النبي عليه الصلاة والسلام وحكوله لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك هدات سين لهيد بيدي أبتيضا أي كوسي أشر بدنان لهيد النبي عليه الصلاة والسلام أبتيضا هدات كوسي صدقاء سين لهيد السين لهيد أي كوسي أجر بدنان لهيد إذن ما أبتها النغض أما حتى ريرك لفتي سانو حاسكاغا هالنغض أما إسلانتو أوديغيدا هالنغض مثلا زينب قبل لورن جري او عبد الله بن مسعود حاسكيسي ايا waxay leedahay nabigan maqlayoon nugu leh tasaddaqna ya ma'shar an-nisaa walaw min hulyakun haweeno wax sadaqadaysta dahabka xidhantiina ha noqdaane haweenko wax sadaqadaysta dahabka xidhantiina ha ahaato nabigu alayhi salaatu wasalaam gabadhaas markaa waxay tiri markaan xadiiska nabiga maqlay alayhi salaatu wasalaam ayaanu imi bay tiri odaygeedii عبد الله ابن مسعود ودقيدي بيوتمي لأنه واحد روار عبد الله أدقوا بفقير بات نين خفيف ذات اليد نين وحيستمته أرد نبي قوتك عليه الصلاة والسلام وحنا فري الصدقة واحد سوي ديسا ورادق مكوكو بحيسان كسية بيلاده ودقيدي لكن واحد هذا أتبع عربات وحمايس إسلام تاو حيسته هنتله لكن عبد الله ابن مسعود وحبا ما هيسته نبي ندمر كلها الله وحلو وحصد قضايسته دبتنا waxay ku leedahay odaygii warad ba faqiir ba too waxba ma haysatide orad u tag nabiga kaleey salaatu wasalaam waxad soo weydiisaa ma kugu baxaysa hadaan adiga ku siiyo Abdullah wuxuu yiri markaa ma yaanu nabiga u tag maayo orad adigu tago soo weydiiso anu nabiga u tag maaye adigu tago soo weydiibo ku yiri waxay tiri markaas aan soo baxay dhexda markaan socdaba waxa igu soo baxday bay tiri gabadh kale oo ansaara oo iyana mas'aladeedii kala wadata iyana rabtay inay nabiga weydiiso ninka hadii wax la siiyo ma ku baxaysaada labadii dumar baa isa soo raacay gurigii nabiga yimaadeen alayhi salaatu wassalaam markay gurigii nabiga yimaadeenna waxay leeyihiin nabiga aad buu haybad weyna marka waa laga cabsan jiray waanu ka cabsanaynay bay tiri
dabeetana bilaal baa noo soo baxay bay tiri bilaal baa waxaanu ku nidhi bay yidhaahdeen i'ti rasuula allahi sala allahu calayh waaalih wasalam faahbirhu anna imra'atayni bilbaabi tasalaanik nebiga u tagoo waxaad ku tidhaahdaa laba dumar oo albaabka jooga ayaa nebi allo waxay ku weydiinayaan odayadayada wax ma ku sadaqadaysan karnaa sidaa bilaalow nebiga ku dhaba yidhaahdeen iyo agoon yaroo aannu haysanno waa calaa aytaamin fii xujuurina odayadayada iyo agoon gurigayaga joogtaa wax ma ku sadaqadaysan karnaa oo ha noo sheegin bay yidhaahdeen kuwaannu nahayna bilaal bay leeyihin hanana sheegin su-aashaana nebiga noo soo weydiiye bilaal baa nebiga u soo galay calayhi salaatu wasalaam su-aashii buu weydiiyey nebigaa markaa su-aal ku soo celiyey wuxuu uhi man huma war waa kuma dumarku labada dumar ee bilaal uu su-aashii ku soo weydiiyey waa kuwama bilaal dee hadduu nebigu weydiiyey ma qarin kara marka wuxuu yidhi waa gabadha ansaariyada iyo saynab buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi ayu zayaanibi waa saynabtee saynabadu waa badan yihiine markaasuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow waa imra'atu cabdillaahi bnu mascuud weeyaan haweenaydii cabdillaahi bnu mascuud qabay weeye markaasuu nebigu yidhi waxaad ku tidhaahdaa lahumaa ajraani ajru lqaraabati wa ajru sadaqati u sheeg laba ajar baa ka helaysaan dheh waxaa leedihin ajarkii qaraabada iyo ajarkii sadaqada labadaa ajar baa leedihi yacni ajarka qaraabada waa maxay waa silatu raxim qaraabo xidhiidhinna way idiin tahay sadaqana way idiin tahay buu nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam sidaa awgeed ayuha alaxiba xidhiidhintu la xidhiidhiyo qaraabadu waa min addiin bale cabdillaahi bnu nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib waa nin aalu beytkii nebiga ka mid ah ayaa wuxuu leeyahay cabdilmuطalib ibnu rabiica ibnu alxaaris ayaa wuxuu u sheegay nebiga calayhi salaatu wasalaam baa waxaa la kulmay rabiicata bnu alxaaris waa rabiicata bnu alxaaris ibnu cabdilmuطalib yacni nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ilmaadeer iyo alcabaas ibnu cabdilmuطalib oo adeerkiiya labada nin ee nebiga qaraabadiisii ka mid ah ayaa kulmay dabeetana waxay yidhaahdeen war labadaa wiil waa laba wiiloo ay dhaleen labadaa wiil intaynu isku darna aynu nebiga u diro oo aynu kala hadalno waxaynu ku odhanaynaa sakooyinkan iyo sadaqaadkan la soo ururiyo dadka ka shaqeeya ilaahay rasuulkiisiiyo ku dar ha shaqeeyaan oo dadkuba dee shaqada waxbay ku qaadanayaane wixii ay dadkuba qaadanayeen iyana ha qaataan warkaa iyagoo wadabo caliy ibnu abi aalib waa isla qoyskiisna ayaa u yimi markaasay u sheegeen wixii ay wadeen cali wuxuu yidhi war ka daaya war nebiga waxaa hawla tegina cali way ka cadhoodeene waxay dhahdeen war naga tagarado markii adiga nebigu inantiisa ku siiye ku soo dhoweeyey baad cali waxaa la yidhi adiga ku maqli mayno waa diraynaa labada inan adiga markii uu nebigu kuu guuriyaad leedahay kuwan loo guurin maayo waa laba wiilo ay dhaleen bay rabaan in nebi maxamed u guuriyo dabeetana waa soo direen markii ay diideen cali wuxuu ku yidhi haddaba labadooda dira idinku ha raacine labada yaryarun ha u tagaan nebigu waxa weydiistaan idinku ka hadha labadiinna nina waaweyn labadii yaryaraa baa la soo diray markii salaaddii duhur la tukaday ayaannu albaabka uga dheeraynay bay yidhahdeen nebiga usii fadhiisanna markii uu albaabka noogu yimi annagoo fadhfadhinuu dhagaanna qabtay bay yidhahdeen nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi markaa akhrija ma tusariraan waxaa qarsanaysaan ii sheega buu yidhi soo saara wixii aa qarsanayseen waxbaa meesha la fadhidaane sheega buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuuna soo kaxeeyo guriguuna geeyey buu yidhi wuxuu maalintaa joogay bay leeyihin gurigii zaynab bintu jaxash haweenkii nebiga haweenay ka mid ah hadalkii baannu isku riixriixnay buu yidhi war adigu hadal iyo adigu hadal labadayadii markii dambe midkood baa hadlay waxay nebiga ku yidhahdeen anta abaru nnaasi wa awsalu nnaas dadka adaa u samafal badan oo u xidhiidhin badan dee annaguna rag waaweyn oo qaan gaadhay baannu nahay dee waxaannu kuugu nimi inaad xoolaha sadaqada inaad walcaamiliina calayh haddii dee naga dhigto xoolaha sadaqada inaad nagu dartid oo dee dadkuba wuxuu hadhow shaqada ku helaya wax la mid aannu ku hello dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuu aamusay in doora markuu aamusnaa ayuu wuxuu yidhi ninka xadiiska warinaya wuxuu leeyay zaynab oo xagga dambe fadhida
ayaa noo gacan haadinayso le war aamusa halla haddina ku celinina hadalka nebigu markaasuu la hadlo wuxuu yidhi ina asadaqa laa tanbagii liaali muxamed inamaa hiya awsaakhu nnaas waar zakadu reer nebi maxamed uma cuntanta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa wasakhdii dadku iska soo saaray yacnii aalu beytka nebiga sadaqadu mamnuuc bay ka tahay ma qaataan dabeetana wuxuu nebigu leeyahay aalu beytku sadaqa ma qaataan ee udcuwaa liya maxmiya nin maxmiyo la yidhaahdo waa ninkii khumuska nebiga hayay yacnii nebigu fayga xoolaha jihaadka lagu soo helo khumus ka mida buu leeyay 1/5 shan dalooloo dalool ninkii khumuskaa mas-uulka ka ahaa ayuu yidhi igu yeedha iyo nin kale oo ilmaadeeriyiin oo la yidhaahaa nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmutalib labadaa igu yeedha buu yidhi labadii baa u yimi maxmiya ninkii la odhan jiray buu nebigu wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak inantaada u guuri buu ku yidhi waa u geed fadhiistay nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana labada wiil mid waa alfadal ibnu cabbaas oo cabdillahi ibnu cabbaas walaalkii dabeetana wuxuu ku yidhi maxmiyow inantaada wiilkan u guuri nawfal ibnu alxaaris ibnu cabdilmutalibna wuxuu ku yidhi ankix haada algulaama bnatak adiguna wiilkan kale gabadhaada u guuriya yacni labadii nina uu u yeedhay laba hawloodoo ay kala dhaleen buu wuxuu leeyahy labadan inan ha loo guuriyo maxmiyana wuxuu kaloo ku yidhi xoolaha sadaqada maahae xoolaha fayga ee aad hayso asdiqacnuhumaa min alkhumus kada wa kada wa kada waxaad ka siisaa xoolaha faygana intaa iyo intaa ka sii buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii xadiidka waxay ku tilmaamayaan oo u deliishanayaan culammadu siduu nebigu qaraabada u xidhiidhinayey inuu xataa u guurinayey oo u geed fadhiisanayey oo ka bixinayey wixii kharashe ku baxayeyna uu nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu ka bixinayey haddaba markaan warka soo duuduubno silada riximka la xidhiidhiyaa koow waxaynu leenahay waxay ka mid tahay diinta waxyaabihii ugu soo hordegay bale waxay ka mid tahay waxyaabihii jaahiliyada carbeedba ay ammaanta u taqaanay diintuna sugtay ee ilaahay subxaana wa tacaala uu sugayo qur-aan aad u badaninoo waaati dalqurba xaqahu miidhanaya oo dalqurbaha in ixsaan loo sameeyaana wuu soo arooray nusuus tiro badan nebiga calayhi salaatu wasalaamna oo ka soo aroortay inuu intaan ka soo qaadannay nusuustaasi oo sheegaysa cahdigii maka iyo cahdigii madiineba inuu nebigu masaladan ka hadlayay nusuustaasi oo sheegaysa in ilaahay uu ku barakeeyo dadka ficilkan sameeya nusuustaasi oo sheegaysa arsaaqda iyo guurku arsaaqda iyo da'duba cimriguba in ilaahay subxaana wa tacaala ku barakeeyo idan waxaynu leenahay markaa islaamku wuxuu farayaa dadku bulshadu inay isku xidhnaato dawaa'ir kale dambaysana way isugu xidhantahy daa'ira aluulaa naftaada marka la dhaafo ee ehelka iyo qaraabada waa waalidiinta waxaa ku sii xiga markaasi qaraabadii waxaa ku sii xiga jaarkii waxaa ku sii xiga masaakiintii iyo agoontii iyo dadkii kale ducafaalu mujtamac waxaa ku sii xiga bulshada dhammaanteed waxaa ku xiga almukhaalifiin kuwa xataa diin ahaan aydan isku waafaqsanayn xidhiidhkaa loo samaynayana waa xidhiidh kelima tayiba waa sadaqa taladu waa sadaqa dulmigu aad ka joojisaa waa sadaqa maalku aad siisaa waa sadaqa yacni waxa laaliya wuxuu nebigu sadaqo ku sheegay oo dhammi waxay geli karaan inay noqdaan maxay silatu raxim haddaba westranka markaynu taagannay dadku maxay u shaqaysan waayeen iyo waa brifate dadku inay shaqaystaan waa lagula taliyaa laakiin laguma qadiyo inuu shaqaysto waa wax lagula taliyo wanaagsan laakiin wax lagu qadiyo maaha waa in la taageera wax la siiya sala allahuma calaa muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam